waxaa la yiraahdaa magacayga Cabdulcasiis Axmed Nuur Cabdullaahi baa la yiraahdaa waxaan kamid ahaa culimadii magaalada iyo dhalinyaradii ka akhrineysay kutubta 2003 bishii shanaad taariikhda dalka laga soo bilaabo tan kalena 2011 dhexdeedii laga soo bilaabo culimadii ka akhrineysay ama dadkii wax ka akhrinayay baan kamid ahaa taariikhda markaas waxa weeye waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah oo markaas waxa weeyaan 2009 bishii labaad diqimtii shanteedii baa waxa dhacday aniga oo darsi ku jira oo fadhiya oo akhrinaya kitaabkii aan akhriyayna halka miiska dushiisa hadda yaala ayaa waxa dhacday laba nin ma magacaabayo oo mas'uuliyiinta ay noo diiday oo dadkii majliska xukumayay kamid ah koox askarana wata baa aniga darsiga dushiisa igu yimid soo baxbaa la yidhi waa la qaaday gobolkan tagnay maxaa dambi oo galay baan ku idhi ma waxaan kitaabkan ahayn baan akhriyay kitaabka laftiisa dambi ugu jawaabay ninkii waa la iska garanayaa kitaabka inaad akhridaa dambiya masaas aha bas hadaa ku qanacsanahay miri halkii aniga gobolka markaa la geeyay halkii markaan joogay warqadii la soo qaaday iyo markaas waxa weeyaan wixii markaa dacwadii la keenay iyo booliska wixii loo keenayna raggii u keenay qayb kamida way fadhiyaanba waxa dhacday markaa halkii aniga oo markaa jooga la qaado ani habaana la geeyay habaana markii la geeyay la waraysay maxaa sameysay la yiri kitaabkan akhriyayaan yiri kitaabka maxaad u akhriyaysaa la yiri taa kitaabka ummadaan u akhriyay oo maxaad ugu akhriyay oo mamnuuc ma in loo akhriyaa hawa mamnuuc taasaba al-shabaab ku tahay intaasaba al-shabaab ku tahay habaana markaas walaalkii Sheekh Axmed baa ka soo sheekeeyay anigu 12 habeen baa waxa dhacday waxaan daldalnaa qacanna xagaas ay geed halkaas igu xidhnaa qacanna waxa igu xidhnayd baabuurka dheer uu sheegay labada lugoodna way ii laalaadeen saasaan 12 habeen u daldalnaa cishaaga marka la adibana waa la igu xidhay subaxa marka salaada subax laga baxana waa la iga furay waanan qaawanaa xataa inaan dharkii salaada ku tukado waa la ii diiday salaadaadu waa salaad al-shabaab bay nagu yiraahdeen ma tukan kartid salaadiba kuma banaana waa ka xaraam wallahi ma qad fiya hadalkaas ugu yiri dabadeed waxaan dhacday qacmahaas way googo'een barar beenta la ekaadeen dabadeed waxaan dhacday inuu jirkaygii oo dhan uu marka qallafay oo nisaay kari waayay oo waliba tan biyaha ku qabsan kari waayay qacantoon ku istiyeysan kari waayay sida markaan 12 habeen ahaa baa waxaan dhacday oo ii dheeraayeen mar dab la igu dhajiyo qor dabo inta leeg hadda halka hadii laga qaado maxayna raqaabada muxuu ahaa khamiiskayga dabkii sidii hadda u madow yahay qor dabo inta leeg oo sida la igu dhajiyay oo ilaa intuu dabkii ka baxtiyo dheecaanka jirkaygu ka baxtiinay lagu sugayo lagu hayay ya dabadeedna sidii la igu qaado la geeyay markaas waxa weeyaa meeshii dhexe halkii markii la geeyayna Yuusuf Jalaal markaas waxa weeyaa waan isku nimid sideedaad baan bila badan ku wada jiraynay sideedaad meesha ciqaabtaan baan bila badan ku wada jiraynay iyo muddo aad u dheer waxaanan ahaa dhalinyaradii xagga laga qaaday maalinkaas waan badnayne waxay ahayd markaas waxa weeyaan ninkii ugu horreeyay waxaan ahaa meesha caqabada la geeyay baan ahaa habeenkii 5 nin baa la ii diyaariyay saddexaad baan aniga la geeyay habeenkii ugu horreysay 5 nin 5 waxay wataan mid baxar saaf jeexo inta leeg buu wataa mid wuxuu wataa tumbadan caaga adag ee qalafsan inta leeg mid bakoorad buu wataa kun waxbay kala wataan markuu mid daalo mid kala soo kacay waana kaliya oo xataa cid garaacayga nasiso markii laga yardaa loo talaabo ma joogin habeenadaas waxa dhacday markuu mid daalay mid kala soo kacay dabadeedna kaasa hadana daari ka saddexaad ba hadana daari ka afraad ba hadana daari ka shanaad ba hadana daari habeenkii oo inta miir doorsoomay yaa waxa dhacday jeerxana farbado biyana meesha way yaalaan waa lagu shubaya waan qaawanahay baxar saafka meesha saa lagu dhufto laba jeer way dilaacaysaa qac hadii hadda jirkayga laga faydo dildilaaciya sidii uu yaala sidiina weeyaan sidii baan jirkaygu dilaacsan yahay in badan oo kamida habeenkii oo dhan matagigi iyo dhiigaygi iyo dheecaankaygii wuxuu buuxiyay qolkii aan kaliya ku jiray oo daf ahaa halkii waa markaas waxa habeenkii oo dhan sida aan ugu jiray halka muddo markaan ku jirayna waxa dhacday markaa waa la iga saaray haddana waxa weeye sideedaadaas la keenay saddexaadii inta la iga soo wareejiyay marka wax la soo koobi karo ma aha laakiin waxaan rabaa inaan 5 qodob ugu muhiimsan oo wixii la sameyn jiray aan tilmaamo koow waxa ugu muhiimsanaa
in ninka culimada inta la seexiyo in jeerkaana xaar oo boosaneerada laga soo daray in la yiraahdo afka iyo indhahaba kala qaad oo loogu shubo oo xataa iskuma qaban kartid la yiraaho baa markaas waxa kow ka ahayd waxa kow ka ahayd inta la qaawiyo oo la diido xataa inuu cawradiisa asturo in haddana markaas waxa weeyaan habeen barkii koox inta fiilo la soo geliyo markaas waxa weeyaan biyo lagu shubo markaas waxa weeyaan baxar saaf iyo bakoorada iyo markaas waxa weeyaan tuumbooyin caaga lala dhaco oo jirkiisu googo markaas jirkaas intuu dhiig isku darsamay baa markaas waxa weeyaan ay dhiigiisa mar uu wada hooray lugahayga ilaa hadda in yar ma taagnaan karo in yar inta hadda aan taaganahay waan daalayaa hawshaas marka taas laba ka ahayd saddex waxa ka ahaa in ninka culimada ah waxa kaliya lagu bilaabo waxay hooyadii aabihii diintiisa nasabkiisa dhalashadiisa intaba in la caayo waxaanu joogay habeen dhaqanku sidii u bedelmay nin diintu caay hal mar 7 jeer baa loo sacabeeyay 7 jeer baa loo sacabeeyay waxa ninkan uu saxsan yahay waa nin isasaxay oo markaas waxa weeyaan fikirkii khaldanaa al-shabaabnimada ka toobad keenay yaani al-shabaabnimadu waa in diinta iyo muqaddasaadka la ilaaliyo haddii taa la ilaaliyo waa al-shabaabnimo halkaas ay taagnay waxa kamid ahaa dhibaatooyinka dhacay iyo mushkilaadka dhacay waxa kamid ahaa ee meesha ka dhacay in sida ay walaalahayba soo sheegeen qofka in la iska xukumo ani maalinkii la keenay maxkamadda muddo aan halka iska jooga la keenay waxay ugu dhaartay nimankii majliska dadkii majliska u talinayay ee diintan hogaaminayna lahaa ma magacaabaye baa ugu dhaartay oo kitaab quraan gacanta saaray oo ninkan waa al-shabaab maxaad ku cadeynaysiin markii la yidhi waxay yiraahdeen waxaanu ku cadeynaynaa ninkan waxaan soo qabanay isagoo dad wax u akhrinaya ilaahay baan ku dhaariyaa fiiriya hadana xataa wax ka tagin waxay ku dareen mawlidku diiday kitaabkan akhrinayna xataa law haday noqon lahayd dibba ma lahaateen mawlid ma ahayn be kitaab usul fiqh way garanayaan sheekh xasaniye mudakiratun fi usul fiqh baa la shanqiidi baa iska cid waliba way garan halkan uu dul yaala hadda kitaabkaas aan akhriyay iyagana igu dhaartay marka waxaan warkayga ku soo koobaya ninka culimada koronta laga sheekeyn jiray in la isku qabto xiniyaha laga qaban jiray in badan halka fadhido hadda xiniyaha qaybla ama markaas xabadla ama labadaba la waan garanayaa in badan baan garanayaa in badan waxaan garanayaa in dhabeeshay in badan waxaan garanayaa markaas waxa weeyaan siday u matagayeen ay dilaacday intaasi oo markaas waxa weey sida wax lagu dhufanayay waxaan ku soo koobayaa laakiin hal la ogaado maanta xukuumadda iyo culimo awdiinka iyo ummadu ha ogaato dadkii waxa sameynayay 90% dadka culimada dadka wayna ahaayeen inay iyaga ahaayeen 90% ha ogaadaan iyaga ahaayeen sababtoo ah systemkii jiray ee markaas hadda tagay dadka wax u gudbinaya iyaga ahaayeen cidii wax u gudbinaysay cidii markaas waxa weey cadaymeenina wada la hayaa hadii loo baahdo lafteeda cidii wax u gudbinaysay wax badan oo kamid ah waan haynaa cidii wax u gudbinaysay ee u warqamaysay iyaga ahaayeen saadarteed waxaan leeyahay oo waliba tan xukuumadda ka codsanayna waxa magacaabayno qalalaasa sameeymayno dib sameeymayno laakiin sidoo madaxweynuhu sheegay khayr allah siiye horta hana loo soo taaga hadii ilaahay yiraahdo dadkaas cadaaladda iyo maxkamadda loo soo taago cafiska markaa ama anaga cafin ama anaga deysan markaa intaasaan ka codsanaynaa eegana waxaan ku darayaa hal qodobkaas waxa weeyaan dadkii sida ay la dhaqmay ee sida noola dhaqmay ee diineen quraan la dhigo ee diineen kitaab la akhriyo ee diineen dadka wax loo sheego maanta waxay taagan yihiin wallahi thumma wallahi inaan dadka waxba loo sheegi karin wali saasi aaminsan yihiin waxaan taa cadeen uga dhigayaa 2 cisho ka hor masaajidka bilaal baan doonay inaan markaas waxa kitaab ka bilaabo aniga Cabdicasiisi waxa la yiri kama bilaabi kartid waxba kama sheegi kartid laguma akhrin karo wax diina masaajidka waxaan in masaajidku haduu adiga idinka idin xirxiran yahayna waaba la ogaan guri ilaahay haduu yahayna waa la ogaani eegana waxaan codsanaynaa in markaas taana iyadana in wax laga qabto oo diinta islaamka ummadda in loo sheego oo loo sharxo masaajidda waxna laga hagaajiyaa waxna laga saxaa waxna ay ka dhacaan in markaa loo fasaxo ay culimadu masaajidoodii iyo marka madaarisoodii sidoodii maanta inay wax uga sheegi karaan
oo ummadda wax ka gaarsiin karaan inaad taana loo ballan qaadaan halkana ka codsanayna hal qodob ay hadhay hal daqiiqo ku soo koobaya raalli ahad waa idinku dheeray qodobkaasi wuxuu yahay dadka iyo markaas waxa weeyaan carruurta iyo ciyaalka iyo dumarka sida loola dhaqmayo haddii gacanta lagu dhiga ama la helo sida loola dhaqmayo ragga si ka daran baa loola dhaqmayo intaasoo qof yaa baa markaas waxa weeyaan dumar ah oo meesha markaas waxa ku dhibaataysnayd baan garanaynaa marka waxaan dhihi lahaa wixii hore oo dhan ama xarafka afka la isku shubo ama baxar saaf la isla dhaco ama koronti iyo dab la ololiye iyo gargara madaxa la isku galiyo wallahi uu joogaa ninkii gargara inta ololaya inta madaxa loo galiyay oo timihii oo dhan ay gubteen wajiguna dhalaalo u diirmay halkan uu joogaa hadda wuu joogaa ama taa ha noqoto ama ha noqoto markaas waxa weeyaan nin la figeeyo sida loo xiro la yiraahdo 10 ninow dulmara 1 2 3 talaabo la qaado oo kor iyo hoos loo sii dulmaro oo ilkiisa ay daataan in badan halka ku ilka weydayna way joogtaa way garanayaan rag badan oo kamida way garanayaan markaas Cabdinuurna anaaba ninkii eelka dhigay anaaba lahaaba maalinka ayada oo ma xidhneen marka ayada waxaan marka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dadka noocaasa in wadaado ayay u badnaayeen walibaatana mana magacaabayno haddii wax kale aan looga qabanin oo hantina loo soo celin oo intaan xidhnayn wixii naga baaqday aan loo xisaabinin cadaaladda loo soo taaga dadka wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh